السلام عليكم ودكتور موليد Ku-dar ودمانتين بإيدي سلامي إذا أنا مركب سؤال هذا عشرة دي امتحانها هاي كوسا سنة Physiology qaybtan waxa aynu ku baran doonaa sida muruqyadu u shaqeeyaan inagoo ka bilaabayna halka ay iska soo galaan neerfaha iyo muruqyada marka qaybtan waxay ku saabsan tahay waxa loo yaqaano Neuromuscular junction ay ku saabsantay marka neuromuscular junction-ku maxaa tahay waxa weeyaan waa isgoyska nerfo muruqeedka oo tusaale haddaynu maaragtay kasoo qaadano kan tusaale sidan aanu nidhaahno sidan oo kale aanu nidhaahno maaragtay lafdhabartii haddaynu soo kale lafdhabartii nidhaahno oo aynu qaybtan kasoo qaadano marka tusaale muruqa tan oo kale muruqan oo kale bicepska la yidhaahdo qaybta innervationka siinaysa oo S5 S7 way mugto waa qaybta siinaysa aynu tusaale soo qaadano sida marka qaybta wanaag soo qaadanay sida neuromuscular ay isugu diraan fariimaha mid isu gudbiso marka maskaxda laga yimi ay xangulada soo gaadho ay u sii dirsamayso maaragtay fariintii iyo nerfeedka ahayd muruqiisi ama contraction ama relaxation ay u dhacdo marka halka ay soo gaadho hadaba sidee balaan eegno sidee halkaa uga sii gudbayso marka halkaan ayadaynu weynaysiisayno tusaale aynu dhahna qaybtan baynu weynaysiinayna haddaynu halkaa weynaysiino sidee u eegtay marka xangulada dhexdeedii haddii halkaan kusoo garo waxa u ekaanaysa sidan oo kale sidaa waan idhaahno sidaa markay tahay saasoo kale weeyaan marka lafdhabartii markaynu eegayna weytana haddaba halkaa marka ay tahay lafdhabartii ay nerfihii soo gaadheen halkan oo kale waxa ku yaala tusaale nerfihii ama waayiradii nerfeed ee soo gaadhay xangulada ay kasii baxay marka qaybta maxaa la yidhahdaa maxay waxaa la yidhaahdaa qaybta horgeeska hore ee xangulada ay noqonaysa marka waxa weeyaan anterior home way qaybta markayn soo qaada tusaale haddaba haddii uu midig ka baxayo oo muruq gaadhayo hal nerf oo kale ama waayira nerfaha Soomaaliya hadaynu sidaad u fahantaan waayo waayirada dee cableska ama maxay sidoo kale internetka oo kale marka qof loo soo gelinayo meel bay kasoo baxaan sooma gurigiis lasoo gelinaya marka kasoo qaada halkan waa qaybtii waa centerki weeyaan ama telephone nidhaahno deetana qaybta ugu dhow soo ma jiraan meelo yaryar oo box foslan oo kale ay maaragtay teenooyinka dhaadheer leeyihiin deetana halkaasi kaaga soo qaadaya
qoladan maaragtay dadka ka shaqeysta dadka ha ahaato ama ha ahaato qoladan waayada xidhaagta internetka halkaas kulli adigana aad ku leedahay xarigaasi soo jiidaya inta kuu geliyaa deetana qolkaaga marka halkan waxaad oranaysaa waa tanada dheereed fadhi marka kaa laga soo qaadaya sasa guriga loo soo gelinaya saasoo kale tan marka ay qofka taagan tahay halkan oo kale xamuulada ayay ka dirmayaa hal ahaday waayir neerfeed kaasoo gaadhaya muuqaalka saasoo kale markaan leeyahay haddii halkan dhibaata iga soo gaadho ama qofka dhaawac soo gaadho ee uu jarmo fariinta maskaxda ka imaanaysa halkan soo gaadhaysa ee uu jarmo inay sii gaadho ma noqdo qofka paralysis noqonay tanna cablekana soo kale xadhigii dheeraaye maaragtay gurigaaga soo gaadhay xadhigii guriga soo geliyay aad maaragtay laptopka kusii xidhnaa soo aada garimaysta haddii halkan laga jaro dee kusoo gaari maayo magaranaysa waxay internet sidoo kale kanna qaybtan oo kale baa ku taala qofka lagu sameeyey tan ay mar sawirna bal mid baa ka baxa tusaale u baxaya xagu tegaya muruqi ayuu si innervation ugu sameeya waa maxay innervation kaloo caafimaadka waxa weeyaan waxa loo yaqaano maxay fariin neerfeed gaadhsiin wey innervation marka hadduu muruqa kan yahay sanoo kale u samaysan yahay marka kanaa gaadhaya ma gaadhi haddii aanay wax dhibaata jirin tusaale sanoo kale usii kala babaxaya qayb buu sii gaadhaya uu sii qabsanaya muruqa si markaa uu contraction sameeyo ama relaxation haddaba neuromuscular junctionka lagu sheegaya xawey markii action potential soo dhacay su-aaloo kale halkan oo kale ay maaragtay ka dirmayso fariinta maskaxda xamuulada ay kasoo baxaya nerveski oo uu ku sameynaya innervation muruqa halkaa ay iska taabanayaan muruqa iyo maaragtay iyo wayirkii ama xarigii dareenka siday halkaa ay iska taabanaya neuronku iyo muruqu halka iska taabanaya ayaa la yidhahdaa maxay waa neuromuscular junction dabeeta bal haddaba neuromuscular junctionka weynaysiina marka neuromuscularka intaan iska masaxno mar hadda neuromuscularka nili halkaas weeyaan dabal isaga weynaysiina say markaa u dhacayaan marka halkay uga dhacaysa maxaa ka dhex shaqeynaya isugu shaqeeyaa neuromuscular junctionka ama squeezeka muruq neerfeed mar kale halkaa ay iska galeen inoo soo weynaysiiye marka in weynaysiisano ayaadan ku sawiro sidanu noqonaya marka neuronka marka uu gaadho neuronka afkiisu sidii marka hore adad soo aragtay qaybtii hore soo daawan kartaa neuron action potential kusoo dhac marka uu qaybtiisa u dambaysa ee halka ay iska gelayaan in sawirna marka neuronsku waa sidan usoo socday deetana maxay wuxuu leeyahay qayb la yidhaahdo oo xaggiisa u dambaysa halka uu qabsanayo halka ay iska gelayaan muruqa waxa weeye marka waa presynaptic membrane weynta kaas waa kaas muruqiina muxuu leeyahay postsynaptic kana membrane ama muruq waxay xoogkii muruq halka iska geliyay dabeetana halkan aynu kala duwanaysaynu u sharaxno
kan laftiisan ayuuba koonaha u turkisana marka saasoo kale marka aan idhaahno ay halkan ku qorno saasoo kale weeye kana aan ka fogeynaba sidaasoo kale lena si markaas fiican aad u aragtaan haddaba maxaa meesha ka dhacaya marka haddii uu muruqi ahayda nerfiski markii uu action potential kasoo dhacay maxaa dhacay balas buu soo rogay marka marka hore muruq waa maxay waa minus إذا محل عين محل ما هذا action potential كل صور وين إكس هو أركني plus like ولو polarization هذا depolarization كيوي depolarization أول وتوسع هاي depolarization وتوسع توت أنا نحن مركا مرقي وهم هاي نقطة ما يعني نرفس كويهويا الكيس أوضم بيسا أيام بلاس نقونيس markii ay depolarization soo dhacay oo fariintii gudbinayo oo leeyahay aad u gudbista muruqa soo gaarsiinay way halkan waxa jira junction way waa gaab weeye ama waxa weeyaan wax loo yaqaan halkan waxa ka jira waxa la yiraahdo synaptic cleft cleft waa maxay halka u dhaxaysa laba synaptic pre-synaptic iyo post-synaptic waa halka u dhaxaysa halkaas hadaba maadaama aanay ishaysan halkan oonu barta markiiba ka dhigi karayn depolarization kana bartan ka dhaci karayn sidee ku dhacaya marka halkan ay usoo gaarta depolarization marka waxaa jira halkan waxaa ku jira waxaa fasaliski waa inuu qaybtii marka hore saas ma usoo sawiray ana waa fasalis baa la yidhahdaa fasaliska waxaa ku jira waxa la yiraahdo acetylcholine waxaan soo gaabinaynaa loo soo gaabiya acetylcholine saasoo qormaysa acetylcholine marka acetylcholine halkan ku jirta aan ka dhignaba bari madow sidee iyadana marka hadaba halkan loogu soo deynaya waayo waa neurotransmitter acetylcholine waxa weeyaan nerveski dirsameeyey fariinta dirmayey waa tii caawinaysay wey ee dhambalka qaadaysay si ay kan gaadhsiiso kan hoos halkan ay kusoo daadanaysaa haddaba se usoo daadanaysa sayna u furmaysaa markaas taasoo kama horreysan ka sheekay marka haddaba uu alan depolarization ka dhaco ay unuga gudihiisii minuska aha plus noqoto oo depolarization waa inaga kuna waxa weeyaan tooganayn repolarization kuna waa taabanaynayna marka guduhu waa waxa weeyaan waa mid marka hore polar minus tadreed waa la maxay minus kidiyo plus baa laga dhigay oo waxa uu noqday maxay depolarization ku dhacay marka uu hadaba uu depolarization dhaco ku dhaco gudaha halkan waxa ku yaala kana la yiraahdo maxay ama marin la yiraahdo marin baa ku yaala la yiraahdo maxay calcium marka waxa weeyaan voltage gated kiyaan soo sheegnay weey waxa uu ku xiran yahay voltage gudaha gaar ahaan marka uu halkan gaaro guduhu gaaro Allah way isku bedesho ma soddon marka uu gaaro waa marka waa -90 buu markiis rest markuu aynu isku soo qaadanay action potential marka wuxuu ahaa maxay -90 marka uu halkan depolarization dhacay ee uu gaaray maxay
halkan 35 meelaha weeyaan halkan -5 waa nigu soo sheegnay waxa weeyaan maxay threshold-ka kusoo sheegnay threshold marka wadaba depolarization dhacay oo sodan gaadhay baa waxa furmaya albaabada ku xiran voltage-ka voltage gated calcium canal data calcium tiyo soo gelaysa calcium tu maxay soo gelaysa waxa soo gelaysa waxa weey dabada wata ku badnay extra cellular fluid calcium ku badnay intracellular kana ku yarta marka maxay mar haddii uu furmay uu geedka furitaankiisu ku xiran yahay halkan positive noqoto waa tan soo gashay calcium gudaha soo geli calcium baa gudaha soo gelaysa markay calcium gudaha soo gasho waxa ay tan ka caawinaysaa fasalka ka caawinaysa inay bartan kusoo xirato kabacdi maxaa dhacaya aan raahno hal fasalo bartan ku yaala ayaa wuxuu qabsanaya gidaarka gudihiina ogo waxa ugu jira mar walba acetylcholine waa tan rabnaa inay kasoo baxdo ay halkan timaado gudbiso fariinta lasoo diray muruqa gaarsiiso marka maxaa dhacaya uu furmaya marka mar hadday isku soo xirmeelaan kusoo xirantay soo aad arki maysa fasalka waxa weeyaan waa qaybtaay wax ku jiraan aaday guntankaas ama ay ku jirto acetylcholine dabeetana maxaa halka ku xigaya mar haddii calciumka soo gashay ay maaragtay ay ka caawisay markaa jira proteins baa jira markaa soo jiidanaya fasalka laftiisa proteins baa ku jira halkan ku yaalla soo jiita bacdina oo ay calcium ka caawisanaya iyaga laftooda isku marmaan sida wayarka xadhigga maaragta si loo dirayo fariin soo saama laba xaarid inta taas daarsiyan saama maraan qoladan electricity saasoo kale ayay calciumka uga caawinaysaa inay halkan timaado kabacdi waa tan soo daadatay marka qaybo baan kasoo qaadanay halkan yimaadeen fasalis badan oo tana soo kale ay timi qaybtana halkan ay timi soonidaysay acetylcholine marka waxaan leenahay halkan acetylcholine fara badan baa jirto oo ah neurotransmitter wey haddaba acetylcholine haddaba waayi halkan haddaba sal dhaaf ama sideebaad u gudbinaysa fariinta aan idhaahdaa sidee u gudbinaysa fariinkeeda waa tan waa soo daadatay calcium baa naga caawisay haye wayna kan synaptic leaf bay joogtaa sidee qaybtan kale maxay halkan ka qabatay fariinta dirisa u jirta halkan waxaa ku yaala markaa wax la yidhaahdo nicotine receptors baa ku yaala nicotine receptors marka halkaas ku qorina iyadana nicotine nicotinic receptors oo marka NN baa marka loo soo gaabiya marka nicotine receptors kan halkan aan kusii qorno maxay iyagu yihiin markaa shaqada maxay tahay waa albaabada weeyaan ku yaala soo sida albaabka ma aragtaan ay u samaysan albaabadaas waxaa ku yaala postsynaptic qaybta hoose qaybta muruqa ahaa ayay ku yaalaan muruqa gudkiisa xoogga muruqa iyaga waxaa kusii dul yaala ligand waxa la ligand gated marka waa sababta loo yiraahdo waa ligand gated nicotinic receptor way marka ligandisku waa halka waxa weeyaan kuraasta ay ku fadhiisanayso maxay acetylcholine halka markay kuwani way xidhay marka way xidhay deetana acetylcholine waa soo daadatay soo maaha halkan ay ka timi deeta acetylcholine tiba bartan wada fadhiisanayso kale fadhiisanayso wayna ka wada soo fadhiisatay acetylcholine halkan marka soo fadhiisato maxay oranaysaa fura albaabka la furo wey waa safgarad
acetylcholine haddii la helo waa safgarad baa yimi dad waa la furaya. Acetylcholine si kale haddaan u dhigo waxa weeyaan bahalkan oo kale. kaarkan waa kaarka aniga ka macalinka jaamacadda weyn jaamacadda wax ka dhigo kan dalmuqtada saturnka baa ku qoran marka haweenan waa haween qofka la shaqeeya jaamacadda ama ayaa la yiraahdaa magacaas ka macalinimo marka gelayso saale acetylcholine waxaan ka dhigaynaa oo kan oo kale marka albaabka gelayso waxa bira yaala maaragtay sidoo kale ah albaabka waa kan bira saasoo kale waa yaala ama tusaale metro oo kale marka marayso idan waxa jiray metro waxa weeyaan undergroundska trainada maro kale waxa la noocaas ka yaala dad halkan qofka halkan maraysa dad halkan waxa ku yaala meel yar aad saarayso bahalkan kan jaacada aan kadaan ka hadlo kan jaacada gacanta ku sitaa dad halkan saan u saartay uu ku banaanay marka hadda saar iska dhaaf waa xiriir mugti naftada halis gelinaysa markaasi qaarwan noocaas qaarna ma wada fikirtid baa wada xiriir si uu formal way basaasaas marka nicotine waxaan ana waa kana kale waa kaarka ku dhaafayso meesha nicotine waxay acetylcholine ma jiro acetylcholine waa kaarka soo kale way timi waxa u fur albaabka yaa loo furay albaabka daba halkaas ay maraysa marka yaa albaabka ay u furaysa okay halkan maxaa la yiri tana waayo mar haday tahay synaptic lift waxa waa extracellular cellku waa kan cellku waa inta waxa waa extracellular halkan waxa ku badan maxay sodium gudaha maxaa ku badan potassium marka waxa u furaysa waxa loo furaya sodium gaar ahaan sodium qusaysaa inkastoo labadu tana baxayso labadu fiidan laakiin tana fara badan mar walba sodium inta soo gelaysa ayaa badanaysa qaatan tan su'aal ku bixin halkan aan ka sarka meesha okay halkan markuu marayso maxaa loo ogolaanaya marka sodium xagga ku badnay ayaa leeyahay soo gal ayaa leeyahay abaa u fur markay acetylcholine maxay leedahay nicotinic ligand gated co naga fura u fura maxay sodium soo gelaysa marka gudiga potassium tuna way baxaysaa laakiin aad buu u yarta marka iyada waxba yeelan marka ku sheeg marka daba sheegina marka baxaysa marka potassium halkan waa ka baxaysa marka taas waa taas laakiin way yarta inta potassium baxaysa way waxa raba in depolarization da hadii la badiyo awoodda baxaysa dad maskaxiyada ka fikirto hadii halkan uu aanu la badin lahaa in potassium badan baxdo dhammaan soo noqonaya marka depolarization da marka وصلت نيجاتيف بقى مسيها marka say positive noqotaa raba in mid wax positive positive soo geliyo marka waxa soo kala mar waxa weeyaan dib waxa weeyaan sodium baa soo gashay hay halkan waa tan saar weey wala midna soo gelaysa marka albaabada dhabi ka soo gelaysa sodium ilaa ka soo qabsatay marka maxaa dhacay sodium taan soo gashay waxa ay awood siinaysaa marka maartay qaybtana inuu ka dhaco maxay action potassium ka dhaco marka halkan waxa ka dhacay wax loo yaqaan EBP waxa waa end plate potassium potential waa end plate potential waxa weeyaan ay marka ku sawirno kan graafki sidaas ahaa marka ay xoogaa halkan ay positive noqoto gudihii inuu marka negative waa -90 waa okay marka -90 haduu ahaa oo ay sidaa ku ahayd resting membrane potential aan soo dhaafnay oo uu threshold kuna uu ahaa -55 haddaba bool intan waxay ka caawinaysaa in thresholdka la gaaro marka inta sodium ay soo diisay oo ka caawisay inuu gas acetylcholine ay iska caawisay in loo soo daa inta sodium la soo geliyo waxay ka caawinaysaa in ilaa la gaaro maxay threshold la gaaro halka markay marayso waxa dareemaya marka in gudihii positive noqday albaabada la yiraahdo sodium waxa la yiraahdaa high voltage gated
marka iyadana aynu ka dhigno so taasoo green tan iyadana si green aan ka dhigno marka okay qaybtaas waxa weeyaan waa albaabo iyaguna ama canalis la yidhaahdo sodium gated voltage gated sodium canalis way marka waxay dareemayaan meesha waxoogaabaa la togeningareeyey ma garanaysa waraynu dee sii caawinaya marka waxa weeya waxay caawinayaan ma sodium toodii ilay halkay kasoo gashay albaabadan iyadaas kale marka saas ma dhacdo marka maxaa dhacaya marka haddana mar kale waxaa soo gelaysa sodium badan sodium fara badan baa soo gelaysa marka blue marka sodium badan kale hadda soo gelaysa marka waa sodium oo sodiumti dabadday ku badeed mar walba gudaha markaa soo gelaysa gudihi ma soo gashay maxaa sii dhacaya marka kanaa markaa dhacaya si fiican marka qaybtan waxa weeyaan marka hore waa carin baa kala carinayay dabeetana waxaa dhacaya gebiga oo dhan maxaa yeelay gebiga gidaarka muruqa maaragtay embledka waa intani la yidhaahdo maaragtay muscle membrane oo muruqa ama post synaptic membrane oo dhan baa waxa ka dhacaya waxa la yidhaahdo end-plate potential marka end-plate potential way depolarization baa soo dhacaya marka ilaa 35 plus ku gaaraya marka mafahanti saas u dhacaya marka depolarization oo waa tan meeshii oo dhan halkan aan kusoo wareegay aan sii badiyo aaday aagan oo dhan ay wax soo gelaysa iyaduna sodium badan baa soo gelaysa marka aag oo dhan wuxuu noqonayaa maxay gebigeedu balad kusoo bedelaysaa saas marka dhacaya waxay la oran jiray depolarization marka maxay depolarization maxay ahayd sodium influx bay sodium to soo gelaysa sidaasa marka ay halkan uga dhacaysa waxa la dhaho maxaa EPP end-plate potential haddaba halkan marka ay marayso ilaa unug waxaa rabaa inuu nasta moogtay maanta fariintii la diray baa dhacday moogtay waa la diray waa maxaa giijisay soomaalina kala bixiso halka kala bixinta hadda maxaa markaa dhacaya mar haddii qaybtani dareentay maaragtay ay furmeen sodium waayo tana potassium soo baxday moogtay iyadana baxaysay yar bay baxaysay markiida horeba iyadana markaa waxa waayo meesha waa la soo batay marka hore iyadoo marka hore potassiumta ku badnayd gudaha ayay rabtaa inay ka baxdo marka maxaa dhacaya waxaa furmaya si tusaale marka waa inuu iman doonaa marka halkaa ku joojin mayno suu maraqa u shaqeynayo laakiin si aan maadaama nidhakan depolarization baa dhacay depolarization saan ugu daro siduu u dhacaya marka laakiin waan sii wadi doonaa sidoo maraqa u shaqeeyo halkan kuma soo koobna waa sectionka waa squeezekaas halku dhacay marka waxaa furmaya waxaa la yidhaahdo maxay si uu repolarization u dhaco potassium kanalka furmaya si uu maxay potassium voltage gated marka iyaduna voltage ku xidhantay mar haddii meesha plus noqotay ama depolarization dhacay si uu repolarization u dhaco oo meesha negative intuu loogu soo celiyo unug markasta boos maaha karo negative intuu loogu soo celiyo maxaa dhacaya sii dheeraysiina marka muruqa santasini dhahno saasoo kale waxaa furmaya potassium voltage gated
potassium ayaa baxaysa waxa dhacaya potassium effluence wax la yiraahdo potassium ta baxaysa si markaa maxay dib loogu soo celiyo hadayn unuga minus 2 hore waxa ama resting si uu dib loogu soo noqdo tusaale kan yaa kan in la markaa marka maxaa baxay potassium ayaa baxaysa saddex maxaa dhacaya repolarization baa dhacaya ilaa uu dib ugu noqdo maxay -90 ilaa -90 dib ugu noqdo oo ah resting membrane potassium kiisa uu dib ugu noqdo marka sida weeyaan soo kale meesha waxa ku jirta iyadana ilaa tan watan istaagtay waa in markaa la joojiyo sidoo kale markaa ay maxay halkan waxa ku jira acetylcholine badan oo inta qabsatay halkan heshay meel ay ku fadhiisato ma garanaysa ama maaragtay kaadhar badan baa meesha yaalla marka haddii kale kaadharkaas sii furfuraya moogtay oo si khalkhal gelinaya inuu repolarization dhaco si markaa meesha looga saaro hadaba waayo waxaan kusoo hornay kow laba maaragta waa 8 marka tusaale waa malaayiin ka soo qaad malaayiin kala marka harayo oo acetylcholine hadaba kow malaayiin waxaan ka wada taabanay marka inta soo hadhay hadaba ilaa haddii aniga meesha laga saarin waxay khalkhal gelinayeen repolarization ka khalkhal gelinayeen waayo waxa sii soconaya repolarization waa sii soconaya diga si marka tolo joojiyo maxaa dhacay marka waxa dhacayo meesha ka shaqeeya halkan synaptic lift waxa la yiraahdo aynu ku qorno waxa la yiraahdo acetylcholine esterase acetylcholine esterase muxuu yahay acetylcholine esterase acetylcholine esterase waxay waa enzyme kaasoo maxaa samaysaa wuxuu burburinaya acetylcholine ayuu laba u kala jebinaya burbur ma laba buu kala jebinaya oo muxuu ka dhigaya haddii acetylcholine to ahaydii wuxuu ka dhigaya markaa laba u kala jebinayayo wuxuu qaybinaya choline iyo acetate labadaas u kala jebinaya soo dhameyntaan choline iyo acetate buu kala jebinaya ma u kala jebiye waayo dabeeta maxay noqonaysaa marka ma already ma aha inkaarki waa inka haddaan inkaarki aan ii sheegay acetylcholine tahay haddii laba loo kala jebiyo mu shaqeynaya waa maya marka waa sidaas laakiin cholineta qayb ka mida ayaa dib loo qaadanaya marka si martaba inkaarki looga sameeyo tusaale waxay noqonaysaa qaybtan shaqeynaysa oo laga jaray oo qaybta dambe bleedka maaragtay qaybta cadayd ama la qaatay noqonaysa tusaale marka haddaan kusoo fahantaan marka cholineta ayaa dib loo qaadanaya reuptake waxa la yiraahdo lagu sameynayo marka halkana qaadanaysa marka qaybtan ayaa cholineta dib u qaadata soo dekaramos oo dib uga samaysan maxay acetylcholine marka waa la kala jebiyey halka mardan waa si shaqeynayso saas ku dhacay action potential ahaday end plate potential sidii ku dhacay tan uga soo gudbay dhac hawshu waa dhamaatay saadaradig waa la kala jebiyey choline iyo acetate baa loo kala jebiyey cholineta waxaa dib u qaadanaysa qaybtan la yiraahdo presynaptic oo dib uga sameynaysa mar kale acetylcholine iyadoo adeegsanaysa waxa la yiraahdo acetyl coenzyme A waxa la yiraahdo ay adeegsanayaan marka maxay sameynaysaa
waxay dib isugu xidhaysaa acetyl iyo maaragtay cholinti saas markaa dib ugu samaysmaysa waxaa la yidhahdaa maxay ahaday acetylcholine transferase baa markaa dhacaya maxaa samaysmaya acetylcholine ayaa dib ugu samaysmaysa marka shaqooyinkaas halkaa ka socda iminka ilaahay arrimaha u dejiyey marka waa sidaas qaybtaas la yidhahdo neuromuscular junction kusoo u shaqeysa waa sidaas qaybaha kale waa sii wadi doonaa laakiin halkan waxaan kusoo sameeyey waxa weeyaan saan u tuso halkan graafkan suu dhamaystirmo oo mar hadduu mar dhacay end plate potentialki inaan idiin sheego inuu tan la burburinayo dubdabaysan marka dambana fibrillarizationki dhacayo laakiin intaynaan tan gelin qaybta dambe sii wadi doonaa sideebuu inuu muruq u sameeya contraction u sameeya saasoo kale sad martay waxbaad farta saartay kulul sidana ula soo boodayso muruqa shaqayntaas siduu sameynaya weli tanaa sii soconaysa marka oo sii fidaysa waxaa fidmaya calcium gated maxaa canaliskaa furmaya iyo sidoo kale ay maartay contraction markaa u shaqeynayaan iyo halkaa iyo maartay waynu sii geli doonaa la socod wanaagsan qaybta dambe sii daawo casharada kuwan ku xiga sidoo kalena u gudbi ardayda kale u baahan in Af-Soomaali loogu sharaxo physiology waad mahadsantahay